wardegdeg daawadayaal subax wanaagsan waqtiga idin tahayba waxaa idin leeyahay wanaagsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka hortagay dhagar weyn oo ay nabadiidka al-shabaab u maleegayeen shacabka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe nala daawada dhagarta laga hortagay ee nabadiidku u maleegayeen shacabka iyo ciidamada ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe kadawle saad aragteenba waa miino nabadiidku ay dhigeen mid kamid ah wadooyinka mara gobolka Shabeellaha Dhexe ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saakayda hore ayagoo roonda ah waxa ay ka dul dhaceen goob nabadiidku ay ku aaseen miino waxayna ciidanku ku guuleysteen in miinadaasi ay qarxiyaan wadada nabadiidku ay miinada ku aaseen waxay marin u tahay shacabka iskaga kala goosha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan waxaana halkaasi ciidanku howlgalo roondooyinaya ka sameeyeen ku guuleysteen in miinooyinkaas ay qarxiyaan saad aragteenba ciidamadu si geesinimo leh ayay miinada u qarxiyeen waxa ayna ka hortageen dhagartii nabadiidku ay ku doonayeen in ay ku waxyeelayaan shacabka Soomaaliyeed howlgaladan waxa uu ka dhacay deegaano ka tirsan ama waxa ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa si wada jira waxay howlgalo ballaaran uga wadaan tuulooyin hoostaga degmooyinka masaajid Cali Guduud iyo Aadan Yabaal iyadoona ciidamadu ay ku guuleysteen maalmihii ugu dambeeyay in deegaanadaasi ay ka nadiifiyaan kooxda qawaarjaahay al-shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaasatan guutada miina baarka loo yaqaano ayaa si weyn waxa ay miina baaris ugu sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ciidankan oo kuwa aad u tababaran ayaa ka hortagay dhagaraha nabadiidku ay ku doonayeen inay ku waxyeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed muuqaalada wasaad ku aragteen askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa si geesinimo leh wuxuu u qarxiyay miinadii nabadiidku ay ku doonayeen inay ku waxyeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed Shabeellaha Dhexe waxa si xawliye saako uga soconaya howlgalada ballaaran oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanada ciidanku howlgalada ay ka wadaan waxa kamid ah deegaanka Cadaan Lixi Cali Fool Dheere iyo deegaanka Jabadgodane iyo tuulooyin hoostaga degmooyinka masaajid Cali Guduud iyo Aadan Yabaal waxaana guud ahaan goobahaasi saaka si xawli uga soconaya howlgalada culus ee wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhawaan xilka la wareegi doona ayaa waxa laga soo wariyay inuu wacad ku maray in goob kasta ay ku sugan yihiin kooxda nabadiidka ah al-shabaab in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku qaadi doonaan duulaano culus waxa uu taliyuhu xusay in marka uu jagada la wareego uu tagi doono fariimaha hore ee dagaalka si uu dhiirigeliyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka adag kula jira kooxaha nabadiidka ah al-shabaab Tali Ibrahim ayaa waxa uu sheegay ama uu xusay in laba bil gudahood deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan goobaha ay ku dhuumaaleysanayaan nabadiidka al-shabaab inuu ka sifeen doono kooxda waxa uu xusay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u diyaarsan yihiin in deegaan kasta ay goob kasta oo cadawgu ku dhuumaaleysanayaan inay gudaha ugu galaan taliyaha oo maanta kulan la qaatay saraakiil ka tirsan ciidamada Turkiga ayaa waxa isku afgarteen in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u qaadaan gulufka ugu xoogana oo korana kooxda nabadiidka ah al-shabaab sidoo kale dawladda Turkiga ayaa diyaaradaha dagaalka nooci ugu dambeeyay ku wareejisay taliska ciidanka cirka Soomaaliya waxaana saldhig weyn looga dhigi doonaa taliska ciidanka cirka uu leeyahay deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe Wargaadhi waxa ku sii qulqulaya hubkii ugu badnaa isaanad military oo keenay dawladda Turkiga iyadoona halkaasi base u noqon doonaan taliska ciidanka cirka si halkaasi ay duulaamada ugu qaadaan ama ay ku duulaan goobaha lagu tuhunsan yahay ku dhuumaaleysanayaan kooxda argagixisada ee al-shabaab Wargaadhi waxa ay kamid tahay goobihii cashirka loogu dhigay kooxda argagixisada ee al-shabaab waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatan dhaqaaqay ugu dambeeyay ee ka wadaan tuulooyin iyo deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe marka uu jagada la wareego taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa la iclaamin doonaa dagaal weyn oo ka dhana kooxaha nabadiidka ah waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatan loo diyaariyay agabkii ugu dambeeyay ee ku dagaalgali lahaayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amar degdeg ku bixin doona in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanku ay dhaqaaqaan goobo kasta oo lagu tuhunsan yahay inay fariisimo ama deegaano ay ku leeyihiin kooxda argagixisada ah al-shabaab cabsidii ugu xoogganeed ayaa soo wajahday nabadiidka al-shabaab ee ku dhaqan deegaanada tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan degmooyinka Aadan Yabaal iyo masaajid Cali Guduud wararka halkaas aanu ka helayna ayaa waxay sheegayaan in degmooyinkaasi ay faarujiyeen horjoogayaashii ugu waaweynaa kooxda nabadiidka ah al-shabaab iyadoona xaasaskii carruurtii ay u degneed halkaasna ay kala baxeen
dadka deegaanka ama dadka ku dhaqan labada degmo ee masaajidka Cali Guduud ee Aadan Yabaal ayaa inoo xaqiijiyay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee degmooyinkaasi kaabiga ku hayaan balse waxay noo sii xaqiijiyeen in horjoogayaashii ugu sareeyay kooxda al-shabaab inay iskaga baxeen labadaas degmo waxaan dadka deegaanka inoo xaqiijiyeen ilaa aan ka soo xiganay in xaasaskii iyo carruurtii horjoogayaasha nabadiidka al-shabaab dhowr maalin ka hor ay kala baxeen labadaas degmo degmooyinka Aadan Yabaal iyo masaajid Cali Guduud waxay ka mid yihiin goobaha sida weyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan gulufyada xooggan oo ka dhan nabadiidka al-shabaab iyadoo ciidanku kaabiga ay ku hayaan labadaas degmo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliya qaybadeeda ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa amar degdeg lagu siiyay inay ku dhaqaaqaan goobo kasta oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan nabadiidka al-shabaab madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amar degdeg ku bixiyay in saraakiisha ciidamadu ay dhaqaaqaan goobo kasta oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan kooxda argagixisada al-shabaab Shabeellaha Dhexe waxay ka mid tahay goobaha sida weyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan gulufyada xooggan oo ka dhan nabadiidka al-shabaab iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalmihii ugu dambeeyay dagaalkii ugu adkaa ee la galeen kooxda khawaarijta al-shabaab dagaaladii ugu dambeeyay nabadiidka waxa looga dilay ilaa 500 oo ka tirsan khawaarijta iyo horjoogayaal waxayna ciidanku howlgalladaas ku soo furteen hub iyo saanado military oo ay ka careen nabadiidka al-shabaab taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ciidamadii ugu badnaa waxa uu ku daabulay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna guutooyinka Gorgor iyo Danab ay haatan dhaqaaqadii ugu dambeeyay ee ka wadaan deegaanka Jabadgodane iyadoo ujeedka ciidankan uu yahay sidii degmada Xawaadle iyo deegaanada ku dhow looga xoreyn lahaa kooxda nabadiidka ah al-shabaab taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo gaaray saacadihii la soo dhaafay gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa abaabulka ugu xoogganaa waxa uu ka bilaabay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuuna taliyuhu xusay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay wadaan gulufyadii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ah al-shabaab wararka ayaa sidoo kale waxay intaas ku darayaan in maalmaha soo aadan ciidamadu ay gudaha u gali doonaan degmooyin iyo deegaano muhiim ah oo ay ku dhuumaaleysanayaan nabadiidka al-shabaab taliyaha ciidanka dhulka oo cutubyo aad u tiro badan oo ka tirsan ciidanka Gorgor ugu qudbeenayay deegaano hadda aan magacooda sheegayna sababo ciidan awoodood ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaasatan guutada Gorgor ee ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuu amar degdeg ku siiyay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku dhaqaaqaan wuxuuna khudbadiisa ku soo qaatay inay muhiim tahay in deegaanada dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan goobaha ay ku dhuumaaleysanayaan nabadiidka al-shabaab in sida ugu dhaqsiyaha badan laga saaro kooxda cadawga ah ee al-shabaab sidoo kale howlgallada sidaas la mid ah ayaa waxay ka soconayaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose wararka aynu ka helino Gandarshe Jilib Marka dhanaana ilaa Buulanaagi ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaasatan kumandoska Gorgor ee halkaas ka wadan howlgalladii ugu cuslaa oo ka dhana kooxaha argagixisada ah al-shabaab taliyaha guutada 20aad ee kumandoska Gorgor Maxamed Sheekh ayaa waxa uu sheegay in dhaqaaqadii ugu xoogganaa ee ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu sheegay deegaano dhac dhulka xeebta qaasatan labada degmo ee Baraawe iyo Marko inay ka wadaan gulufyadii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha argagixisada ah al-shabaab labadaas degmo waxay dhacaan dhulka xeebta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka wadaan dhaqaaqadii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ah al-shabaab degmooyinka Baraawe iyo Marka waxay ka mid yihiin goobaha maalmahan ciidanku ay ka wadeen howlgallada xooggan oo ka dhana nabadiidka al-shabaab waxayna ciidamadu ay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ay kala wareegeen kooxda argagixisada ah al-shabaab wararka saaka aynu ka helino deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose qaasatan deegaanka Buulanaagi oo xiriiriya Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku dhaqaaqeen dhowr goobood oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan kooxda argagixisada ah al-shabaab taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa wax war ka soo saarin howlgalladii saaka ka dhacay deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxayna ciidanku maalmihii ugu dambeeyay ee wadeen gulufyadii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha argagixisada ah al-shabaab sidoo kale Hiiraan ayaa ka mid ah goobaha sida weyn saaka ciidamadu howlgallada uga sameeyeen wararka aynu ka helino deegaanka Dhisaqtiir iyo Ceel Gorof ayaa waxay sheegayaan in ciidanku dhaqaaqadii ugu dambeeyay ee ka wadaan halkaasi Ceel Gorof iyo Dhisaqtiir waxay ka mid tahay goobaha sida weyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan howlgallada ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah al-shabaab iyadoo ciidamadu maalmihii ugu dambeeyay ku guuleysteen in deegaanadaasi ay ka nadiifiyaan kooxda nabadiidka ah al-shabaab wixii ku soo kordhay howlgallada xooggan ee ka soconaya deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Hoose waxaad ka daawan doontaan channelkeena Galcad hadduu fadlan muuqaal ku soo gaaro subscribe noo dheh waa mahadsantiin